dhammaan ardayda dadka kale ku xidhan casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub iyo lesson cusub. lesson-keeni maanta waxaan dhiganaynaa sideedaad. dhammaan dadka ku xidhan channelkayga waxaan ka codsanayaa Facebook page-na furnay waa casharada caafimaadka isaguna marka inaad soo like-garaysaan YouTube channelkeena inaad si subscribe sii saartaan oo sawirkiisuna kan xagga hoose idin yaala labada sawir baa kun xagga hoose yaala. haddana isla eegno ardaydan shuuriya maalin dhowtay waxaan qornay su'aal ahayd marka caruurta 12 sano ka yar maxaa loo siin wayaa sprinter iyaduna fikirkeeda ay markaa kasoo dhibatay. fikirkan marka haddaan isla akhrino waniga Reye's syndrome kani soo sheegnay is most often effective that children of and teenagers receiving a viral infection more commonly the flu or chickenpox. inta inaad soo akhrisaan oo soo fahantaan idinka la karaba marka intaas waa in muhiim ah asaasan marka qalinka casida ku heergareey ardaydaasna aad buu mahadsan tahay aqoontaada halka ka sii wadno kullanahay. arday maanta waxaan baranaa waxa loo yaqaano doxycycline 100 mg waa dawadeena sagaalaad bay noo noqonaysaa. halkan waxaad ka aragtaa brand name-keedii oo Doxia iyo Nordagas waxyaalaha inta magacyada darka soo dhanba oo group of 30 cycline ay ka tirsantay doxycycline marka waxaan magacyada arkaysaan waa brand name-keed. waxaa loo isticmaalaa brucellosis-ka, waxaa loo isticmaalaa cholera, waxaa loo isticmaalaa syphilis-ka, waxaa loo isticmaalaa infection-ka ku dhasha indhaha chlamydia trachoma indhaha ku dhalata. dosage-ka laga qaadan karo caruurta waxay ka qaadan tahay caruurta 8 sano ka weyn waxay qaadan kartaa 4 mg iyadoo weight-kooda lagu dhufanayo loona qaybinayo 25 dose. adult dadku weyn oo kale 200 mg bay qaadanayaan bir dhigi iyadoo 2 dose loo kala qaybinayo. cholera marka la daweynayo shuban biyodka marka la daweynayo caruurta kale 6 mg baa weight-kooda lagu dhufanaya single dose. dadka waaweyn 300 mg baa single dose la siinaya. inta jadwalka idinkaas ka akhrinaya waxa muhiim ah xagga hoose 4 kg markay tahay 100 mg na stedo clinicia doonadan master lama qoro sababta lagu qorinayay kale ka rabaa inaad soo jawaabtaan. duration-ka soconayso waa 7 cisho dawadani markay tahay xaaladda syphilis-ka markay 14 cisho soconaysa. side effect ay keeni karto waxa kamid ah inay sababto gastrointestinal disturbance, inay sababto skin reaction, inay sababto inay photosensitivity inay keento oo qofkii ilayska cadaadda u nuglaado. precaution taxadar laga yeelanayo waxa weeye doonada administer looma qoriyo caruurta ka yar 8 sano waxa sababta lagu qorayna waxay tahay waxa dhaawaca seelkooda. haddaad ogtahay inaad allergic qof ku leeyahay tetracycline siimaysid marka dawadan waa isku group. it's recommended to use doxycycline instead of tetracycline for both pharmacological and cost-wise. doxycycline xagga ka isticmaal lahayd bedelkeeda instead tusaalaha tetracycline inta badan waa lagu bedelan karaa ku leeyahay dhaqaalo xagga dhaqaalaha. pregnancy oo kale waxay ka tahay contraindicated dawadani. breastfeeding oo kale waxay ka tahay iyadoo contraindicated bi ka tahay mamnuuc ka tahay. sawirada aad arkaysaan waa sawirada precautionada taxadarada weeye. remark take between meal not with food. hadda waxa weeye kaniinkan cuntada la qaadan markaad cuntada cuntid waqti u dhaxaysii ka bacdi hadhow cun. storage-ka below 30 celsius degree wax ka hooseeya aad ku storage gareyn kartaa. never use isticmaalin buu ku leeyahay haddii waqtigeedu u dhaco doxycycline taadaysta waayo khatar waxaad gelinaysaa renal acidosis inaad keentid. acidosis iyo alkalosis waxa la jira oo marka kaliya marka damage uu geysto haddii acidity aad u farbadato.